Ladies and gentlemen, brothers and sisters, we need more Ilhaan Omars. And I strongly believe, I'm convinced, that our communities, whether in the US or the UK or Canada, can produce more Ilhaan Omars. wariyaha la yiraahdo Mehdi Xasan oo inta badan ka hadla mawaadiic la xiriira xuquuqda dadka laga tirada badan yahay iyo islaamka barnaamijka Up Front la yiraahdana ka soo jeediyay TV-ga Al Jazeera English ayaa khudbad uu boqolaal dad u jeediyay ku dheeraaday inuu ka hadlo Ilhaan Cumar isagoo dhiirigelin u soo qaatay waxana uu hadalkiisa ku bilaabay sidan. And I want to end by telling you another story of another little girl, another refugee, born in Somalia. She spent 4 years in the Dadaab refugee camp in Kenya, the world's biggest, before arriving in the United States, aged just 12, unable to speak more than 2 or 3 words of English. Her father, to help her learn English, told her to watch cartoons with the subtitles with the captions on. waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo sheeko kale oo ku saabsan qof kale oo qaxooti ah gabar qaxooti ah oo ku dhalatay Soomaaliya xilada qaxootiga ee Dadaabna 4 sano ku soo qaadatay ka hor inta aanay iman Mareykanka iyadoo jirta qiyaastii 10 sano ilaa 12 sano aabaheedna uu ka caawiyay barashada luqadda Ingiriiska 17 sano jir markay ahayd waxay qaadatay dhalashada Mareykanka sanadee kadib waxay ka qalin jabisay jaamacadda waxayna baratay political science waxayna ka shaqaysay isuduwidda arrimaha bulshada 2015kii waxaa gobolkeeda Minnesota yimid Donald Trump wuxuuna Soomaalida gobolkaas ku badan ku diray inay gacan siiyaan argagixisada oo uu sheegay inay ku biirayaan ISIS waxayna uu yiri sidoo kale ay wadanka oo dhan ay ku faafinayaan fikradahooda xag jirka ah markuu madaxweyne noqdayna waxa uu wadankeedii Soomaaliya ku daray liiska wadamadii islaamka ahaa ee laga mamnuucay soo galista Mareykanka mudanayaal iyo marweyn gabadhaas qaxootiga ah ee Soomaaliya ka timid Ilhaan Cumar waxa loo doortay xubin ka mid ah Koongareeska Mareykanka waxayna heshay 78% codadkii gobolkii ay ka timid waa inaad u sacbisaan waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed qaxootigii ugu horeeyay Afrika ka yimaada gabadhii ugu horeysay ee muslima oo madax asturan oo markii ugu horeysay abid ka shaqaysa Koongareeska Mareykanka sidani waa sidii aad ugu guuleysan lahaydeen midabta koorka cunsuriyadda nacaybka Ilhaan Cumar mar aan waraystay horaantii sanadkan waxay ii sheegtay inay tahay riwaayadda ugu weyn ka soo horjeeda madaxweyne Trump Ilhaan waa wax kasta oo uu nacab yahay Trump iyo taageerayaashiisa midagta fog asbuucan waxay dhiirigelin u noqotay muslimiinta dhalinta soo koraysa iyo kuwa ka sii dambeeyaba rag iyo dumarba waxay dhiirigelin u tahay dadka madow qof kasta meel kasta oo dunida ka mid ah in loo istaago ka hortagista kala qaybinta isnacaybka iyo baqdinta laga qabo islaamka iyo khaladka laga fahansan yahay mudanayaal iyo marweyn walaalahayga muslimka ah rag iyo dumarba waxaan idin leeyahay waxaan u baahanahay boqolaal Ilhaan Cumar oo kale ah waxaan ku kalsoonahay in bulshadeena ku nool Mareykanka UK iyo Canada inaan soo saari karo boqolaal Ilhaan Cumar oo kale ah waxa loo baahan yahay inaan muujino haddaan nahay qaxootiga meelahaas ku nool in aynaan meelna u socon oo aynu halkan joogayno oo aan meesha ka saaro nacaybka loo qabo soo galootiga iyo qaxootiga waan tusi karaa waxa aan nahay markaan u istaagno inagu xuquuqdeena aan soo dhaxsanno oo aan codayno oo isu ololayno oo anagu is dhiirigelino oo aan doorashooyinka ku guuleysano oo aan wax hogaamino oo aynaan joojin inaynu niyadda isu dhisno isna dhiirigelino inagu aan isu kala qaadayn diimo iyo jinsiyado kala duwan laakiin waxayna kulmeynaya uu noqonayo inaan u istaagno cadaaladda iyo bini'aadanimada waxaan leeyahay soo galootiga qaxootiga iyo dadka laga tira badan yahayba u istaaga xuquuqdiina idinkoo dhiirigelin ka dhiganaya sheekada Ilhaan Cumar walaalahayga muslimiinta rag iyo dumarba Assalamu alaikum. Never allow anyone to turn you against your fellow human beings, your brothers and sisters, your equals, especially your fellow human beings who need help. And tonight, my dear brothers and sisters, tonight is the night we give them that help.
Thank you very much for your time. Assalamu alaikum.